السلام الله عليكم أصحابي السنة wanaagsan halka aad videogan ka daawanaysaan waa Dr. Xaashi Network. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduucan maalin dhaweed ka hadlay oo la yiraahdo career option in Canada aan ugu magac daray. mowduucaas waxaan uga soo hadlay chemical engineering, petroleum engineering iyo pipeline engineering iyo mustaqbalka ay leeyihiin 10 sano soo socota iyo kadibba iyo meesha adduunku u socdo iyo sidoo kale waxaan idinkula wadaagay YouTube-ka linkiyo jaamacadaha laga barto iyo kollejyada laga barto Canada ku yaala. videogaas waxaan si qaas uga hadlay opportunity-ga ay weliba dhalinyarada Canada ka barata ama meelo kale ka timid oo shahaadooyinkooda bedelayda ama dib u baranaysa hadda wixii aan xoogaa yar hoga tusaaleeyay oo inta badan Mareykanka iyo Canada opportunity-ga uu ku leeyahay aan ka hadlay. maantay waxaa ugu qasbanaan wax yar ka daba tago saad ogtiin xalay iyo maantayba waxaa miidiyaha soo galay in shidaal laga qodayo Soomaaliya oo process waqti dheer soo socday uu yahay oo hadda gabangaba jooga oo maraakiibtii qodi lahayd iyo adugu facilitieskaas ay yimaadeen ama ay soo dhow yihiin waxyaalaha noocaas ayaa socday. marka waxaan rabaa inaan wax yar intaas ka daba tago sida petroleum engineering iyo sida looga faa'iideysan karo iyo faa'iidada uu Soomaaliya lafteeda u leeyahay oo sida dadku uga faa'iideysan karaan. in horta resourceska laga faa'iideysto oo shidaal la qodaahu waa calaamad fiican, waa wax fiican oo mustaqbalka iyo dhaqaalaha wadanka wax badan ka bedeli kara oo ama GDP-ga waxa la yiraahdo kor u qaadi kara oo waa arrin aad u fiican. su-aasha marka meesha taallaa waxay tahay inta badan shidaalka markii la qodayo sidaa looga faa'iideystaa. shidaalka markii la qodayo wadamo waa jiraan dadkoodu aad u yar yahay oo markii la qodo dowladdu lacagta ay hesha way dadkoo dhan kala gaarto oo la siiyo oo fasiilaad badan iyo caafimaad free iyo adigu si dadban iyo si toosaba loo siiyo. laakiin wadamada dagaaladu naafeeyeen oo fragmented ka ah oo wadanku qaybsan yahay oo xaaladiisa iyo institutionskiisa dowladnimo ay weli daciifka yihiin oo isu kaankaanka ah oo Soomaaliya oo kale ah oo sidaasa way adagtahay in si noocaas ay uga faa'iideystaan oo lacagtii iyo shidaalkii laga qoday iyo dadkii oo dhan ay gaarto oo si direct iyo indirect ay u gaarto. laakiin sida ay wadamada noocaas oo kale uga faa'iideystaan waxa weeye inta badan waa shaqo abuur. marka laga reebo waxa dowladdu heli doonto oo iyadoo ay shaqaalaheeda sii doonto oo ay maybe in iskuula free ku sameeydo iyo istaala free, taas marka laga soo tago waa shaqaale. shaqaalahaas maxay yihiin? waa chemical engineering, waa petroleum engineering, waa pipeline engineerska kuwa tubooyinka dhiga, waa energy managementiga kuwa yaqaana sida loo manage gareeyo energy-ga iyo waste managementiga iyo waxyaalaha ka soo hara, waa environmental safety-ga iyo environmental managementiga iyo sida waxyaalahan meelaha kiimikooyinkan iyo waxyaalahan sida looga ilaaliyo environmentiga iyo hadday bad tahay iyo hadday berri tahay si aysan u dhibaatay lahayn. shaqaalahaas iyo khibradaas kumanaanay gaari karaan. marka su-aasha aad isweydiiyaydo haddii aad Soomaali tahay marka laga reebo waxyaalaha oo hype-ka iska socda iyo waa ka taajirayna marka laga soo tago, su-aasha ay tahay inaad isweydiidaa waxay tahay shaqaalahaas ma haynaa anagu maanta? su-aal maya. institutionkii iyo jaamacadihii ay kasoo bixi lahayn xataa ma dhisan yihiin oo chemical engineering iyo petroleum engineering iyo soo saari lahayd? maya, ma jiraan. sida anagu inta aan la socdo ma jiraan. institutionkaas ma jiraan. dhaqaalo badan laftooda in la dhisaa u badan yihiin, ay u baahan yihiin planning, ay u baahan yihiin regulation, ay u baahan yihiin. yaa jaamacad noocaasa fura kara? sidaa loo furaa? buugaagteeda xaggaa laga keenaa? macallimiinteeda xaggaa laga keeni karaa? institutionkaas saa loo dhisa lafteeda planning iyo waqti u baahan. marka maadaama aanan hayn waxyaalahaas oo dhan, waxaan ku tiirsanaa doonaa shirkadahaas ama dowladahaas qodaaya oo waxaa soo saaraya shidaalka inay shaqaalahaasna ayagu la yimaadaan ama ay wadamo kale ka keenaan. macnaheedu mushaarka dadkaas qaada doona hadhow wadamo kale aadi doona. so opportunity-ga employment opportunity-ga meeshay ka baxday oo adiga boqolaal dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho oo Soomaaliyeed oo maanta engineeringkaas iyo waxaas haysto jaamacada soo saareen oo u shaqo tagaya ma jirto. macaj research oo waxaas lafteeda research gareeya iyo dadkii ka shaqeyn lahaa xataa ma jiraan. marka you relying on shaqaalahaas inay keensato dowladdii ama shirkadii dhisayda oo ciddii waxaas qodayda oo ciddii ay kula heshiideen ay keensato. marka meesha faa'iido weyn weliba wadan 70% in ka badan dadku unemployed ay yihiin oo aysan shaqo haysan.
haddana resourceskoodii markii la bilaabo aysan u diyaarsaneyn. marka haddaan kuusoo koobo, ma diyaarsanin shidaalkalada sida looga faa'iidaysto waddamada qodaalka ay uga faa'iidaystaan waxaa ka mid a shaqaalihii iyo institutionskii inay iyagu leeyihiin oo lacagtaasu ay dib ugu laabato waddanka. marka okay, haddaan lahayn balaankeed ma lagu jiraa oo qorshaheed ma lagu jiraa, oo haddii maaragta la yaramaan dowladda nooqodeeda iyadu waxay rabto ha keento, waxaan ku tiirsanaa doonaa waxa la yidhahda assumption. afka soomaaliga assumption waxa lagu yidhahda hadda waa iga maqan tahay, laakiin waxaan assuum garaynaynaa ama aan maaragta qiyaasaynaa inay dowladdaas iyo hay-adahaas qodaya oo iyagu ay shaqaalo qualify noo keenaan, environmental hazardska iyo dhibaatada la socda iyagu ay nooga digaan oo dhulka ay nooga ilaaliyaan. dowladaha strategic partners waxa la yidhahdaa jirto, dowladaha shidaalka qotaa dowlado kale heshiis leeyihiin si ay uga gataan oo wixooda ilaa intaas wadana qoda doonta waxaaga adiga in lagaa gato lafteeda suuqgeeda, in ayagu kuwii dantu noogu jirta noo doori doonaan, inay ayagu shaqaali qualifygaha noo keeni doonaan, inay environmentiga iyo dhibka nooga ilaali doonaan, inay mustaqbalka ayagu kuwa noo training garay doonaan oo isku filaa doono. waa assumption, anugu hadda ma dhahayo waa sax oo maaragta way noo samayn doonaan oo aaminaadaasaa jirta, iyo noo samayn maayaan dantooday fiirsan doonaan. midna kuma dhahayo adiga go-aankaas adigu gaar, laakiin waa assumptionka aan haysano maaragta oo aan ku tiirsanaa doono waa intaas. marka kumana dhaliilayno maaragtay dadkii ama madaxa ahaadeen ama siyaasiyiin ha ahaadeen arrintaa kasoo shaqeeyo. waxaa maaragta qaacida adduunka waxaa jirta in la yidhaahdo waxaad rabta haddaad weydo waxaad ka badi weydaa la yeelaa. soo sida muuqata waa waxay ka badi waayeen, laakiin waxaa hadda la qaban karaa waxay tahay oo hadda la samayn karaa waxay tahay in la diyaariyo institutionkaas oo maaragtay jaamacadahaas noocaas oo dadka noocaasa soo saari kara, in regulation loo sameeyo, in haddii ilaahay kuurooya curriculum loo dejiyo. waxaasoo dhan lacagay u baahan tahay, kormeeriday u baahan tahay, wax walbay u baahan tahay, laakiin waa wax la samayn karo si 10 sano soo socota aan tan oo kale aysa kuugu dhicinoodan ugu tiirsanaan. okay, taas waa meesheed. dadka marka dhalinyarada oo maanta waxaas baraya oo maadooyinkaas aan soo sheegay baranaya, oo Maraykan ka baranaya, oo Canada ka baranaya, oo Russia qaarkood laga yaabo inay ka bartaan, oo qaar Malaysia ka baranaya, oo wadamo badanaa jirta. video kalaan uga hadli doonaa wadamada ugu macquulsan oo laga bartaa iyo sababtaa loo doortaa fieldeskaas. opportunity-ga aad haysatiin haddaad taqaaniin arrintaas waa wax la soo koobi kara maaha. kasako ina waddanka aad ka baraydaba inaad ka shaqay karto, haddana macnaha waxaad kula laaban kartaa waddankii Soomaaliya oo uusan institutionkaas ka jirin. waxaad ka qayb qaadan kartaa in la dhiso institutionkaas, waxaad ka qayb qaadan kartaa inaad shirkadahaas hadda wax qodaya la shaqayso, waxaad ka qayb qaadan kartaa in ay dowladda lafteedu ku gorgortanto tira anagoo waxaan haysanaa 200 oo shaqaalo qualify oo Soomaaliya iyo adduunka kale wax ku soo bartay oo experience-gii laho arrintii. marka haddii aan hore kuugu sheegay inaad maaragtay arrimaha shidaalka iyo adduunyadu meeshay u socotay iyo pipeline-kaas oo aad 16,000 ku dhawaad qof oo daawata videoga hore aad ku jirto, hadda ugu opportunity waa sii ballaaratay. project manager dhanaad noqon kartaa, macnaha waa waddankaas curdanka oo hadda shidaalkiisa la faagfaagayo. waad maaragtay aad hawsha aad adoo qof Soomaaliya oo luqadii yaqaano, environmentiga u naxayo, dadkii u danayhayo, maaragtay haddii meeshii shirkadihii iyo musuqmaasuq ka socdo dhahayo waxaan sidaan maahan, oo maaragtay keliya maahan inaad naftaada xataa aad wax ugu qabaydo, laakiin dal iyo dad aad wax ugu qabayda. marka careerskaas aan kasoo hadlay oo petroleum engineeringa iyo pipeline engineeringa iyo chemical engineeringa waa very important adduunyadan maanta la joogo iyo meesha loo socdo oo energy crisis-ku aad aragteen wax yar haddii la iska qabsado meesha uu aadi doono. tii hore haddaan waxay ku laabto wadamo maanta waa jirtaa shidaal qotay oo hodan noqday, laakiin ogaaw xataa security wax walba wadamadaas wadamo kale u qoda ay ku tiirsan yihiin. marka ilaa ay maaragtay gaaraan in korkooda lagu tartamo la yiraahdo haddaad aniga i qaniinto waddankan iyo shidaalkiisaan baabi'inaya. macnaha waxa weeye dad markii hore isku tashaday oo wuxooda ayuu gacanta ku hayo oo security-gooda maamulo oo wadooda maamulo oo wax walba maamulo maysan ahayn. marka waa waxyaalo u baahan in laga fakaro lafteeda. maaragtay inaad shidaal qodato hodan noqoto waa fiican tahay, laakiin waa inaad u diyaar garowdaa, dhinac walba uga diyaar garowdaa sida aad mustaqbalka 20 sano 30 sano 40 sano generational wealth say u soo saari lahayd. maaragtay waa in loo diyaar garoobaa. marka waa mahadsantihiin videogaas yaran idinla wadaagayay. videoga like-ta iyo share-ta iyo ugu dadaala iyo commentigiina waa muhiim. asalaamu calaykum.